amniga iyo guddiyo loo xilsaaray inay arrimahan ka shaqeeyaan. Guddiyadii tan iyo xilligii doorashada la gudagelayay iyo intii ka horeysay ayaa ilaa iyo imanka si xoogan u shaqeynayay. Waxaa jiray qoraallo dhanka xafiiska madaxweynaha kasoo baxayay oo guddiyadaasi amniga soo gaarayay oo iyagana ku saabsanaa in caleemasaarka maadaama ay kasoo qeybgalayaan dhinacyo kala duwan sida dowladda federaalka madaxda ugu sareysa, dhinacyo federaalka kasoo horjeeda oo qeybo kala duwan oo ka imaanayay dalka Kenya iyo magaalada Muqdisho ay kasoo qeybgalayeen in arrimaha ay warqada kasoo baxda dhanka madaxtooyada ay qeexaysa ay kamid ahayd in aan laga bixi karin arrimahan caleemasaarka oo iyagoo ka baqaya in arrimo siyaasadeed loo adeegsado maalmahan ay joogayaan martida iyoba ka qaybgalka caleemasaarka. Marka arrimahaasi ay ahayd arrimaha ugu xoogan, hadalhaynteedana ay soo badanaysay maalmihii ugu dambeysana si xoogan looga hadalhayay magaalada Garowe, taasoo xataa ay ka dhalatay shalay Cabdiraxmaan Cabdishakuur siyaasiga inta uusan imaan magaalada Garowe, siyaasiyiin taageersanaa iyo sidoo kale taageerayaal kale oo watay calamada barnaamijkiisa laga hor istaagay in garoonka diyaaradaha ay ku lulaan, taasoo dad badanna ay kasoo horjeesteen oo ay yidhaahdeen waxaan ka xunnahay in siyaasigaasi dadkii soo dhaweynayay laga hortago ama laga hor istaago in garoonka ay tagaan amaba ay muujiyaan taageerada Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay u hayaan, taasoo wax badanna ka bedeshay sida muuqanaysay ilaa iyo shalay sawirka guud ee arrimahaasi ku saabsanaa. Madaxweynaha cusub maxay tahay waxyaabaha ay shacabku ka filayaan marka dadka la sheekaysatay? intan madaxweynaha maalintii la doortay ayaa la dhaariyey, imanka waa caleemasaarka oo la filayo in caawa lagu soo gabagabeeyo magaalada Garowe. Marka laga soo tago khudbadaha la fili doono in madaxda cusub ee Puntland oo maanta hadalka ay yidhaahdaan ay ku xiran tahay dadka filashadooda iyo siyaasiyiinta kale ee kor ka imaanaya hadday noqdaan dhinacyada dowladda federaalka kasoo horjeeda iyo madaxda ugu sareysa ee Soomaaliya ama dowladda federaalka laftirkeeda. Marka laga soo tago madaxweynaha cusub, maalmihii ugu dambeysay dadka ku dhaqan deegaanada Puntland ama reer Puntland waxay aada u hadalhayeen madaxweynaha cusub wasiirada laga filayo in uu horkeeno dadka